xarunta caafimaadka Arladi Specialist Hospital ee magaalada Baydhabo ayaa waxa uu wada dadaalo ku aadan sidii bulshada u baahan ka daaweynta cudurrada kala duwan kuwaasi oo ka kala imaanaya gobolada Bay, Bokola iyo qaybo kamid ah shabeelooyinka. Sida maamadan idin muuqata waxa laga keenay gobolka Bokola iyadoo markeedii hore loo haystay inuu hayay cudurka dibsada balse uu hayay cudur ka weyn. Sida aad u jeedaan 5 kilogram oo biyo calooleed ah ayaana laga soo saaray. qaar ka mid ah bukaanadii aan ugu tagnay ayaa nooga warbixiyay xaaladooda hadda iyo markii hore ee la keenayay xarunta caafimaadka ee Arladi Specialist Hospital ee magaalada Baydhabo. may oo sheenay oo ka jirnay magaalada Baydhabo ee kumada xaafadda wada jir muddo lama balooda yamay hay ifi kaadada ihirmaasi qoon dhamiirana laakiin kaada ihirmaasi marka insha Allah ilaahay fadlishi markii dambe walahay gaada isbitaalka mal ishaani iyada leena taali waliga li samay wali gale marka alxamdulillah ilaahay mahadiis eed yani ismaadahay yaami ana bogsooda eed rajan kullah eed walin gadada insha Allah wala rishuga insha Allah eed walin gadada alxamdulillah maalintaas isbitaalka laga sheenay hadda ma farqeen alxamdulillah maalintaas tiiray lan tiirayo قدوميو شفات سماي أو يدنا ربوسن الحمد لله هذا سكون جيف هذا لنجوم جيد جنيا راشين جي سكوا أما رجع جي في لا يدي يدنا في بقول كي بقول يدنا الحمد لله. دويم كذي يسمى إسبتال كورم. الحمد لله. قناع سنت. يدنا قناع سنة بقول كي بقول. ساس. ما دخلت ملي شيء أو رجع. ما بان هذا الحمد لله هذا كله وقت أدر لو ننتي هذا إسبتال بطور رجعنا لا رجدا سيدنا إن شاء الله. نهاريستي له مالك قرص ده كل إندي إسبتال هابلك جيول أو فرسمة أي ولا عنك سامني أو عنتي اللي هل أني داوي ستوين خالي برجدا كجرت الحمد لله هذا إلهي كما سن إلهي برجعنا تاسو فيلان. إذا إنتوا سنير الله بركة هو بشيء موت إذا كنت بقطعه تكتوركم الإنساني إلهي كرسي شد سيجرتو يسون إلهي صاب وسي ترتيبه إن داوي كر الله سي ذكر هو بشهر أو أول صحيح ديرت أبو سجرته فيه. موتى جيبوا مسيح تسبيح. موتى تجير قبل قد قدرت إن كده قدرتي. قد قدرت إن كده قدرتي كنت إنجيتي أنا نمتون هو ده ميرفدي دي ميرا إنجيتي مركزت قبل قو وامدين إنجي ميرا له يطري. دكتور يونس الإجاي هذا المدة دكتور يونس الإجاي دكتور كم هذا الإنسان إلهي كرسي قاف ما دريت إلهي كرسي إيه متى كوي هذا ترتيب هون داول هذا ما شاء الله كر الله سيسون سبب الله كسي سبب الله كسي بيت كين هو بشيء إيه إنتهى سيرة حتى ما شاء الله هكون نقتي إلا هذا وكله ندور طلبت القرآن ما هذا ما شاء الله ما يلحق هذا كتير مله ما شاء الله هيد إلهي تطورك إشغالس إلهي كرسي ما يا سكرة قبتي ما يأرنب دكتور كنت إنكشاف ما هي كلمة إنكشاف أنت إنكشاف مركز ساسة جرتبه دكتور عبد القادر حاجي أحمد وقابل سنة عذرات الجودة يقال نضاده وأنا دكتور كهول قال حرونتا عافيمادka Arladi Specialist Hospital ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ka hadlay howlaha uu qabto isbitaalka sidoo kale dhakhtar Ciro ayaa bulshada ugu baaqaya in bukaanada lagu haynin guryaha inta uusan cudurka ku faafin ee la keeno xarumaha caafimaadka usbuucada ugu dambeysay bukaanada soo booqanay ee cudurrada ugu badan oo isbitaalka imaanay waxay isugu jiraan xanuuno kala duwan waxa ugu badan xanuunada ku dhaca kaliyaha iyo kaad mareegka xanuunada macaanka ama sokorta ay taqaan Soomaalida dad dhaawac qabo kuwa shilal galay oo qaliin u baahan iyo maxay tood kuwa ka xanuunsan caloosha iyo baarka iyo dheefshiidka iyo cudurrada xanuuno caruur badan oo qabta xanuunada caruurta ku dhaca iyo hooyooyin sidaas oo kale ayayna qabaan
xanuunada la xiriira maxay tahay cudurrada haweenka sida kuwa la xiriiro infectionada ku dhaca dumarka kelyaha maxay tahay xubnaha taranka dhammaantood wayna soo booqdeen qaar badan oo ka badan way ka faa'iideen maxay tahay way ka faa'iideysteen daryeelka isbitaalka uu fidiyay qaarna weli daawadii u socoto waxaan rajeynaynaa insha Allah in uu ilaahay ku bogsiyo waxaan rabaa intaas kadib inaan baraarujin aan u marsiiyo dadweynaha kuwa ku xiran isbitaalka Arlada Specialist Hospital iyo kuwa kale oo deegaanka ah waxaan aad maxay u jecelnahay oo aan wax u soo baranay oo aan inta u joognaa in aan daaweyno dadkeena marka waxaan dadka ka codsanaa kuna baraarujinaa inay qofka marka uu xanuunsado waqti fiican oo ku habboon in wax laga qabto ay isbitaalka keenaan la soo xiriiriyaan dhakhtarka intii uu hadduu cudurka qofka daaho daawadana way dheeraanaysaa waqtigeeda laakiin haddii waqti fiican la keeno waxaa fududaanaysa dhakhtarka inuu cudurka hadduu yaryahana intuu yaryahay la daaweeyo ama la helo qaab kale oo looga hortagi karo cudurka inuu sii faafin ama usii gudbin maxay tahay darajada labaad ama secondary uusan develop garaynin marka bulshada waxaan ku baraarujinayaa qof hadduu xanuunsado inay durbadiiba ama dhaqsidiiba isbitaalka hore ay ka tagto si maxay tahay cudurkeeda si fudud wax looga qabto